Waa ku salaamay saaxiib. Haddii aad weydiiso maxay dhirbaaxadu markan aadka ugu xanuunka kulay dhirbaaxooyinkii aan uga bartay adduunyadu inay la dhacdo, waxaan kugu jawaabayaa laga yaabo waxa saas oo dhan ku xanuunjiyey in aanay ahayn dhirbaaxada ee ay tahay gacanta ku dhirbaaxday. Way ku adag tahay qofka inuu aqbalo inay dhirbaaxdu gacantii weligiiba soo dhunkanayay, amaba laga yaabaa inay tahay xilliga ay dhirbaaxadaasi kugu soo aaday. Mararka qaar qofku waxa soo mara duufaan aan haddana ciduuska gedin leegna liicinin. Mararka qaarna leydhan neecawda ah ayaaba laga daa. Amaba laga yaabaa inay tahay murugooyinka oo kaa tambatay saaxiib. Marka uu qofku murugoodo, murugooyinkiisii hore ee uu nabnabay ayaa soo wada kaca, oo waxaba aad moodaa inaan murugadaasi quriyay ku filnayn. Dhaawacba dhaawac u dhigma ayuu baaqayaa saaxiib, niyadjabkuna waxa uu soo jiitaa niyadjab la mid ah. Sidaas awgeed ma aadan wajihin hal niyadjab uun ee hungooyinkaagii nolosha oo dhan ayaad wajahaysay, mana aadan ogeyn. Amaba laga yaabaa inay tahay qurbaha iyo dhaltabyada saaxiib. Waxa ugu badan ee qofka wiiqaa waa inuu keli noqdo. Waxa uu dareemayaa in koonkan oo dhami dhinac ka safan yahay, isaguna dhinac kale yahay, oo ay tahay inuu wajaho, isaguna uu ka maagayo inuu wajaho. Oo baa la daymoonayo isagoo ka fiirsanaya koonka weyn rid uu ka baxo oo uu sii xidho marka uu dhaafo. Nabaadina saaxiib.